inaad ogaatid in jirkaadu uu fuuq baxsan yahay iyo in kale si aad u ogaatid maanta waxaan ku tusayaa qaab fudud oo aad ku ogaan kartid in jirkaadu uu ka maqan yahay biyo badan ama biyaha normalka inta lagu talagalay oo dhiiga ku jira oo wareega dhiiga saxa biyahaasi in ay saxsan yihiin in kale ama si aad u ogaatid in aad tahay qof dehydrated ah oo fuuq baxsan in kale waxaan ku tusayaa qaab fudud oo aad ku ogaan karto qaabkaas fudud waxa uu yahay waxaad fiirinaysaa fartaada dhexe middle fingerka cidida ayaad waxaad ku sameynaysaa cadaadis yar aad ku sameynaysaa pressure yar markaad cadaadis ku samaysid cidadu way cadaanaysaa oo waxay noqonaysaa mid cad oo dhiigi ku jiray wuu kala tagayaa qofka normalka ah mostly waxa waaye cidadu way gaduudan sida anigoo kale hadda saad u jeedaan cidadu waxa waaye way gaduudan tahay laakiin marka aan riixo waxay noqonaysaa way cadaanaysaa marka aad riixdo oo aad cadaadis saarto oo aad sii dayso waxaa la rabaa 2 second wax ka yar inay dhiigga hore inuu kusoo laabtaan rabo cidadii ay guduudkii kusoo laabato oo ay guduud noqoto haddii markaad cadaadis ka qaado oo cadaadkii markaad pressure ka qaado haddii dhiigga soo laabashadiisa ay qaadato 3 second iyo wixii ka badan micnaheedu waxa waaye waxaad tahay qof fuuq baxsan oo jirkiisa biyo badan u baahan haddii ay dhacdo in 3 second wax ka badan ay qaadato cidadaada inay guduudka kusoo laabato waxaad u baahan tahay maalintii inaad cabtid 3 litir iyo wax ka badan ogow inaad tahay qof fuuq baxsan oo jirkiisu u baahan yahay biyo badan iyo in kale si aad ula socotid muuqaaladan oo runtii waxtar kale oo caafimaadkaada faa'iido u leh la soco page-keena page-ka Dr. Iqra iyo page-ka Dr. Jawhari Family follow sar like dheh la wadaag asxaabtaada si dadka dhan ay ugu faa'iideystaan YouTube channel-keena soo raac wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu